warwarbixinu diyaariyay wariye jiif ka toosa seexda wuxuu yidhi dadaal dheeri oo uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu ku guulaystay inuu gobolka geda ka reebo doorashada soomaaliya warbixintiisana wuxuu ku soo gunaanaday in kasta oo qorshihii madaxweynuhu dib ugu dhigayay doorashada uu cadow badan oo gudaha iyo dibadda ay hor istaageen haddana weli madaxweynuhu dadaaladiisa sharfanaa ma joojin intii aan maqnayn waxbaa dhacayo kollayta dhammaantiinna waa og tihiin marxab yaa kalamaan wadac yaa ramadaan duulkoona la diiday duulkoona la doortay kolley dhammaantiin waa og tihiin marxab yaa kalamaan wadac yaa ramadaan wixii dhacay horay wayba dhaceen wixii dhici doonana waa la sugaa marxab yaa kalamaan wadac yaa ramadaan baryaan aamusnayn bishii ramadaane salaan iyo bogaadin bulshoynaga hooya marxab yaa kalamaan wadac yaa ramadaan murankii iyo doodii bil qurood iska dayseen waryaada reer kalamaan haddii aad dibirteen dadkuna ay cabureen bal wuxuu u daraayoo qalbigiinna damqaayay maanta daaha ka qaada dadku ha idin maqleene war axmedow adigo aan dirig damleyna dagaalkii yukrain iyoonay ruushka wiliba dareera doorashanta ku dhiyaasa madeeyow bilaashaad u xiiqaysaahe lafta gareen asaa wiilka yar keensaday dad kale inaad beriga eedaysana gar uma lihid war cabdullow madaxweyne farmaajo maday mursal isagaa yidhi lagama maarmo shahaadadiina waa qaatay lacagta diiwaangelintana waa bixiyey haddana isagaa hoolka tegi waayeen ee lafta gareen maxaa kugu diray aryaadaha dowladda imaaraadku waxay aqoonsataa la yidhi golaha hoggaaminta dalka yemane sacuudiga waxu eeday waaye war yemen maxaad ka rabtaa fahad yaasiin oo cadaalad raadinayaaba bishii ramadaan la arkee waar adigaan dadka kale aqoone ninka cadaaladda raadinayey fahad daahir axmed buu ahaa war abwaandhoodaanba allaha u naxariistee wuxuu yidhi dadka sidii libaax dhidhiyaan wadar u laayaaye haddase kaan wada looltannaa way legdahayaa war su'aalihii ramadaankaee raadiyo kulmiye laga sii daayey ma lagu daray ekis u qaado xildhibaanada lagu soo doortay ceelwaaq waayna u qaado xildhibaanada lagu soo doortay garbahaarey haddaba haddii ay tahay dhaarinta xildhibaanada sila hargeysana ay tahay xaruntii baarlamaanka haddaba soo saara isla egta xaraf kastaa maxay la mid tahay ekis maxay la mid tahay waayna maxay la mid tahay ekis waxay la mid tahay fiid siid lagu daray doorasho dadban waayna waxay la mid tahay xildhibaano in la dhaariya raadinaya iyo doonista madaxweynaha haddaba tartamahaasi jawaabta uu bixiyey haddii ay tahay mid sax ah iyo haddii ay tahay mid qalad ah waxaan hordhigaynaa madaxweynaha aryaadhaha madaxweyne farmaajo su'aashaas ka jawaabay wuxuu yidhi acmaashii bisha ramadaan la bilaabay ha la sii wado war kalamaanay labadii lix tobnaad ee loolankii iyo feerka ee legdankii ka dhaxeeyey mid maalayrtu la haadoo libintiisii la dhaafay langala maaliga isu dhakadii afarlalaka laga faaqay lehlaha nusna laari warwarbixinu diyaariyey wariye jiif ka toosa seexda wuxuu yidhi dadaal dheeri oo uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu ku guulaystay inuu gobolka geda ka reebo doorashada soomaaliya warbixintiisana wuxuu ku soo gunaanaday in kasta oo qorshihii madaxweynuhu dib ugu dhigayay doorashada uu cadow badan oo gudaha iyo dibadda ay hor istaageen haddana weli madaxweynuhu dadaaladiisa sharfanaa ma joojin